السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آد بيني ولا سلامي دمان أصحابتي دا كحران يوتيوب كيغا بيج كيغا فيسبوكا ويب سايت كيغا تيك توك كيغا يا وليبا انستغرام كيغا دمان تين waxaan leeyahay qalbi furan gacmo furan inta nagu cusubna waxaan leenahay idinku soo dhawaada oo soo booqda website-deena iyo youtube-keena ma sha Allah maanta waxaan ka hadlayaa mawduuc oo waliba mawduucaas oo ah mid dhowr jeer lagu yiri ka soo hadal mudana xeeraaliya qodobkaasi waxa weeye xulashada guurka qaabkee baynu xulan lahayn qofka ay nolosha la wadaagayno sida la wada ogsoon yahay markaan rabo anigu inaan shay ka hadlo haddaan ahay xeeraaliyaha jacaylka anigu shayga waxaan ka hadlaa khasaarihiisa iyo faa'iidadiisa ee kama hadlo oo qura shayga faa'iidadiisa ما شاء الله كل باس حافر بدن أيه يقول تاجرتي شيء قال بدن نعمة ما كان كيستاجو لأن أنا أقول شخصية أقرأ وهاللي معي هو حنا أنا أقول صورك هاي دمان أهل عشقية أولاد شايل مركا هم يجوا إن قفك بنا آذن كاهي أما قفك دليل راهي سقي هوين كوا هذا ما ولا شيء قام كوا قاعدنا إياهي ومستقبل كجور كيسا إيوه قفك ونلاش لو داقي لها قابك وحلن لها سو guulaysto maxaa yeelay ayaha noloshiisu waxay ku xiran tahay go'aanka uu ka qaato ama ka gaaro goorkiisa qofka nolosha uu la qaybsan lahaa sababta ku xulan lahaa maxay tahay sababta go'aanku uu qaatay ayaa dhalinaysa in ayaha noloshiisu uu ku noolaado nolol farxad leh iyo inuu ku noolaado nolol reereen iyo murugo leh ama nolol ay xumo leh sababta go'aanka uu qaatay hadii uu go'aanka uu qaatay xumaa nolosha ayaheedu uu ku noolaan lahaa waxay noqonaysaa nolol mugdi ah laakiin hadii uu mustaqbalka guurkiisa si wanaagsan u xusho wuxuu ku noolaanayaa nolol farxad leh sidaa darteed waa inuu ka fikiraa